soo ritay aniga walaalkay ku dhacay walaalkay aniga iga yar ku dhacay adeerkii wey adeerka goorma u dhintay wallahi laba toddobaad ka hor u dhintay labada mar waa soo noqdeel dhoob ma aaminsani aniga hadii la riwaayada jira hadii ma saarin ba aniga ina arko aan ku qoostaba aniga ma arkin ba dawladda Soomaaliya waxa ku dhawaaqday in xanuunka COVID-19 uu soo rogaal celiyay maalin walba ku dhawaad 10 qof ayaa la dhigay isbitaalada sida ay sheegtay wasaaradda saas ay tahayna nolosha magaaladu waa nolol iska caadi ah ma jiro wax ka hortaga oo dadweynuhu ka muujinayaan nolosha waxay u socotaa si iska caadi ah gaadiidku wuxuu u soconayaa si iska caadi ah dadweynuhu waxay u fadhiyaan si iska caadi ah ma jiro wax ilaalinta habka la yiraahdo social distancing oo ka jira magaalada haddaba dadweynaha magaalada Muqdisho ayaan weydiinaynaa haddii ay u diyaar garoobeen xanuunka soo rogaal celiyay ee coronavirus makeena magacaygu waa Axmed Nuur Maxamed Xasan runtii horta qof ku dhacay ilaa hadeertaan maanan arkin laakiin waxaan arkay in badan in koronahaasi uu beledka caafi wax uu ku haayo oo naftirkayga nadarto aan ku arkay isla shalaytii aniga maxaan joogay isla xaafadan waxaan arkay macnaha ambalaaso isdaba dhaafayo oo wadada oo bukaana ah saas darteedna dadka hadeertaan oo maxaa aniga aan ka mid ahay oo bulshadan aan kala noolahay ma laha dad oo diyaar garow runtii waxaan ku arkay waxaan maqlay in badan ala socdo media si fiican ula socda waxaana dhageystaa maxaa lahayd mid aniga aan gabar aniga abti aan u ahay ayaa waxa loo qaaday isbitaalkiina waa laga soo celiyay waxa la yiri maxaa isbitaalkii ma aan qaabili karno maadaama corona uu jiro sidaad la ajligeed ayadoo xanuunsan ayaa waxa lagu soo celiyay gurigii halkaas ayaa quraan lagu saaraya hadda adiga wax diyaar garow u sameynaysaa ma jirto aniga diyaar garow aan caadi ahaan waan ku jiraa waxaan haystaa runtii maaskar ahaan marka aan dareemo meel caadi ah waxaan isticmaalaa maaskaraha sidaas ayaan u xirtaa aan ugu gudbaa ma fahanti maaskarahan lamid ma sida keega camal oo wantaan ah waxaan ugu baaqayaa maxaa lahay taas waxaba ka daranba oo la sheegay macnaha in la isku soo baxayo maalinta jimcaha ah in la isku imaado oo halkaas banaabax laga dhil oo maxaa lahay lagu muujiyo taasina waxa ka dhalan karto runtii caabuq aan caadi ahayn uu sii faafo bulshadana waxay noqonayaan kuwa ayaga dhan wada caabuqa hadda inta wada taagan ayaga dhan waa wada jiran yihiin runta markaan kaaga hadlo nin walba xintiis uu ku jiraa waa faantaa u maleynaya markaan dareemo aniga kan ayaan sii gashanaya waan ku sii dhaafaya aad ma santahay shukran inta ka barahaya ma jiraan qof familka iyo qof asxaabta oo bahalkan oo ku dhacay laakiin dhibaatooyinkiisa waa uu iska badan yahay haddana diyaar garow la'aantaas uu xanuunkaas uu xataa adiga ugu dhici karo aad iyo aad horti waa wax walba waxay ka dhacayaan xagga alla soo u qoray u dhacayaan inkastoo bulshada aan nahay dawladda waa wacyigelinteeda inaan u dhuglaagnaano waayo aan dhegaysano aanan u diyaar garowna bahalkaani maadaama uu soo lawa kacleeyay waxaa anaka waajibaad aana saaran inaan qaadano awaamiirta dawladda iyo dhakhaatiirta waa inaa nin walba taxadirkiisa maskiga in la isticmaala social distancing in la adeegsada dhammaan waa in loo diyaar garowaa waxaa moodaa inay fahamsan yihiin يعني ilaalinta shuruucda kala fogaanshaha si cudurkan loo maartay uusan u faafin laakiin badi isku ma dayayaan inay kala fogaadaan laakiin way fahamsan yihiin sharci ahaan inay tahay in kala fogaado qaar badan waxay sida caadiga ah daneynayaan inay iska yimaadaan shaahid meelaha ku caabaan laakiin wax walwala ama cabsi ah oo ay ka muujinayaan xanuunkan bataata ma jirto waa sii wadi doonaa haddii ay dadka qaar raali ku yihiin aan sii wareysano walaal deerumta waxaanu ka hadlaynaa cudurka corona oo soo kaclay corona qofka ku dhacay la hadda moogtaa ma abo cabsaas ma qabtaa adiga kab darawal ahaan waa qaba maxaa samaysaa marka face mask iyo waxa ma xirata waa xirtaa la gaada iska hada waxaan leeyahay ha xirtaano galafiska gacmaana iska dhaqaan magacayga waa xaskaafi adeerkii wey adeerka goorma u dhintay wallahi laba toddobaad ka hor u dhintay taal martineliya la geeyay meesha uu geeriyooday ay qafeelka waqaasi ma jira laakiin asaga alaf ahaantiisa macnaha dhibaato badan oo gaarsiiyey ilaa dhiig iyo macnaha waxyaabo badan xataa oo afkii sanka oo keeno oo gaaray oo muslimiinta ka mid ahaa aad iyo aad warka samee dhaqaatiirta iska wada tayle adi ahaan maxaa mustacurkan cudurka leeyahay ani ma aaminsani ani ahaantayda wiligayna ma xiran man isticmaalin waxaan ku aadan in yani xanuunkan aad xakameysaan oo inaanu gudaha u baahin ilaahay xaqiis le macnaha anaga tala saarana maana wax kale talaabooyin aan qaadno ma jiraan may hadda waxaan ku siinaynaa hal xabo oo maad sheeg oo face mask ah laakiin sida kaliya ku xiran kartaa ma noqonaysa haddii qof ka mid cidiina ku dhaco ama adiga kugu dhaco aniga wallaahi markaas ma ogi ma sheegi taas hadday dhacdo waa xiranaa laakiin hadda ani ma aaminsana labada mar waa soo noqdeel dhoob ma aaminsana ani hadii la riwaayada jira hadii ma saarin ba aniga ina arko aan ku qoostaba aniga ma arkin ba si cabsi ma qabo aniga karoonigi waaba iiga daraybo waayo wuxuu iiga daray jaadki shaqo la'aan
awal jaadka waxaan keel jirna kameelna hadda lacagtiisa oo dhuminooyaa annaga jaadkeena nool soo fasaxo waa la sheegoobay la raadiyaa la sheegoobay aniga ilaa iyo hadda abasiib xalanaan deganaa qof corona virus u dhintil dhaay oo meedkiisa la duubay sheeg ma basaarin ba aniga aad iyo aad corona waa dhib badan yahay waana wax maxay ay tahay in laga digtoonaado laga taxadaro u baahan marka maxay ay tahay Soomaalidana waxaan kula talinayaa inay geedka asaga waa xun yahay wadankeenana maxay ay tahay maasha Allah ma laha system fiican marka waxa laga rabaa dadka in ay aad iyo aad uga taxadaraan ma arkinbo marka arkale ma naxayo ilaa hadda qofka ku dhacay ma arkinbo dad u dhintay ma la yaabo ila al'aan corona inoo jiro ma leeyahay dad aaminsan ma arkin qofka ku dhintay wadama gaalada kuna ku dhimatay kun ishana ku dhimatay waa maqloobay laakiin hadda man ku sii baashan qaad ma yaaleey kaala aad ma santaa markii la sikiriya maamadan oo kale iyo dad badan oo la mid ah way jirabeen buuxan waan aragnay kan waxa uu maleeyaa corona inuu ku yimaado maanta waa gashaa maanta waa ina gashataa daawadayaal run saad sheegayso ma aaminsan baa laakiin waxaan ku dadaalaynaa ma ahan waa baashan aad u roon yahay wuxuu ka ilaalinayaa sideena inta anaga karaankeena ahna kabariye ahaan waa wacyigelinaa haddana waa ugu jirnaa wixii ka bilaabatay inaan sii wadno wacyigelinta saar ilaa hadda dadaad ogtahay xanuunkan soo ritay ma jiraan dadaan og xanuunkan soo ritay aniga walaalkay ku dhacay walaalkay aniga iga yar ku dhacay oo isbitaal u galay laakiin alxamdulillah hadda waa fiican yahay jiraano aabahay waa yeelo 80 jir ha joogay waa karantiilnay ninka asaga isbitaalan geeyay isbitaalkii ku karantiilnay aabahayna si taxadar la aad iyo aad waa 80 jir maadaama uu 80 jir yahayna cudurka aad ugu nugul yahay maxaa yeelay waxa la sheegay cudurkan caruurta iyo haweenka xaamilada iyo dadka waayeelka inuu ugu daran yahay marka saas darteed taxadar badan ayaa sameynay odaygii wiilka waa kala dheeraynay ciyaalka yaryarka waa ka dheeraynay alxamdulillah sida isbitaalan geynay muddadii 22 cisho kadibna noo soo fiicnaaday waxaan ugu baaqayaa horta ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay taxadarkiina habato ummadeena ilaahay waa la aaminaa inkastoo alla la aamina haddana ilaahay taxadar yaa loo baahan yahay cudurka maadaama uu yahay cudur jiro oo adduunka oo dhan galay islaam iyo gaalo iyo midna aan u turaynin waxaa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed maadaama aan wax walba daciif u nahay maadaama aan wax walba u jilicsannahay inay taxadar badan sameeyaan qaasatan hooyooyinka suuqa jooga waxa looga baahan yahay inay ka taxadaraan inay cudurka inta magaalada ka qaadaan suuqa ka qaadan ayna awlaadooda u geynin iyo dadka la dariska iyo waayeelkii dhalay ayna u geysidaa darteed waa inay taxadar badan sameeyaan